kulankan xildhibaanada galmudug ee cadaada ku yeesheen waxaa shir gudoominayay gudoomiye cali gacal casir ajanduhuna wuxuu ahaa mooshin ka dhan ah madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf qodobada lagu soo eedeeyay madaxweyne xaaf waxaa xildhibaanada ka hor akhriyay xildhibaan garaad yuusuf maxamuud oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka galmudug jabinta dastuurka dowlad goboleedka galmudug sida ku cad qodobka 50aad farqadiisa 9aad waa dambi kadib markii uu gacan galiyay dastuurkii galmudug ahlu sunna kuwa oo meesha ka saaray gabi ahaanba dastuurkii galmudug kuna bedelay mid kale labo musuqmaasuq sida lunsashada dhaqaalaha galmudug ay ku taageerto dowladda Soomaaliya iyo deeqaha caawiyaasha taas oo sababtay in muddada uu kursiga joogay xaaf aan hay'adaha galmudug ee dastuuriga ah aysan qaadan wax xuquuq ah oo ay xaq u lahaayeen saddex ku tumashada awood qaybsiga beelaha galmudug xaaf waxa uu xuquuqdoodii siyaasadeed duudsiiyay qaybo badan oo kamid ah bulshada galmudug isagoo si cad u sheegay in aysan lahayn wax xuquuq siyaasadeed ah taasoo ka hor imaanaysa dastuurka iyo mabda'a reer galmudug intaas kadib waxaa dood la geliyay mooshinka laga keenay madaxweyne xaaf sidaa darteed xildhibaanada galmudug waxay go'aansadeen ummadaanu waxay rabtaa horumar ummadaanu waxay rabtaa in maamulkooda iyo dawladnimadooda ay shaqayso ayna la tartamaan maamulada kale oo la mid ah waxaad ogtihiin markabkii turkiga uu ugu deeqay galmudug gabi ahaan meel lagu sheegay lama arko deeqdii saarayd hantidii saarayd axmed ducaale isagaa gaalkacyo ku xaraashtay marqaatiyeed ka tii dadka reer gaalkacyo tan marqaatiye ka reer galmudug marqaatiye ka waxyaabaha markii loo tagay ee la yiri axmed ducaal keen ummadii baahnayd waxeedii keenna xildhibaanadu u tagay wuxuu ku yiri mucaaradaad ugu tihiin idina siima waxaad galmudug ku leedihiin lama arko dood dheer kadib xildhibaanadu waxay u cod qaadeen mooshinka ka dhanka ah madaxweyne xaaf waxaana natiijada ku dhawaaqaya gudoomiye cali gacal casri oo sheegeen 47 xildhibaan oo fadhiga fadhisay codkii kalsoonida ay kala noqdeen madaxweyne xaaf isla markaasna si ku meel gaar uu xilka u sii hayn doono maxamed xaashi cabdi madaxweyne ku xigeenka galmudug xildhibaanada fadhiya waxa ay ahaayeen 47 xildhibaan waxaa xilkii kalsoonida gacanta u taagtay 47 xildhibaan oo xilkii kala noqotay madaxweyne axmed ducaale geelle wax ka aamusay ma laha wax diidayna ma laha sidaa darteed ayaa madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xeef uu ku noqday madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka laga bilaabo maanta oo bisha ay tahay 15 bishii September 2018 waxaa xilka madaxweynenimada intii laga soo dooranayo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug xilka waxaa sii haynaya madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi cabdi marka laga soo tago xilka qaadista xildhibaanada maanta cadaado ku shiray ay ku sameeyeen madaxweyne xaaf dhinaca kale dhuusamareeb waxaa ka socda mooshin ka dhan ah madaxweyne ku xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi saadaq laka warbaahinta SBC magaalada cadaado.